maalinta 29aad guulku gelid dhageysta waxaan u baxaynaa Yeruusaalem halkii nebiyada oo dhan waxa ka qoran wiilka aadanaha ku rumoobayso waxa loo gacan gelin doonaa kuwan reer bani Israa'iil ahayn way ku jeesjeesi doonaan si xun ula dhaqmi aan dhuufina doonaan waana la karbaashi lana dili doonaa laakiin maalinta saddexaad wuuna sara kici doonaa inkastoo sayid ciise uu ogaa in loo dili doono dunuubta bini'aadamka wuxuu go'aansaday inuu qaado jidka Yeruusaalem wuxuu labo ka mid ah xirtiisa u diray inay u keenaan dameer intuu sii saarnaa dadkii badnaa aad ayay ugu reynreynayeen ilaahna u ammaanaya iyagoo ku naadinaya sayid ciise waa boqor macallinow xiltaada ku amar inay aamusaan haddii ay aamusi lahaayeen dhagaxaanta naftooda ayaa qaylin lahaa waxaa barakaysan kan rabbiga magantiisa ku yimaada kow maxaan halkan uga kuurgalaa ciise masiix labo sidee ayaan u eryadaa ujeedada boqortooyada waqtiga amaanta iyo waqtiga dhibaatada saddex haddii aan ogahay inaan usbuuc gudaheeda ku dhimanayo sidee ayaan si wanaagsan uga dhammaan lahaa